maxaa loo isticmaalaa ereygan insha Allah wanaagi doona hold back waxaa loo isticmaalaa wax dib kuu dhiga oo tusaalooyinkan insha Allah aynu eegno marka koowaad they held me back dib bay ii celiyeen the biggest thing shayga ugu weyn that hold me back kaasoo aniga dib ii celinaya is playing soccer waa ciyaarista kubadda cagta hold back waa phrasal verb loo isticmaalo markastoo aad leedahay shaygaasaa dib dhigayo celinayo stop garaynayo joojinayo aniga marka baastna waa laga dhigaa oo halka hold oodunbaa ii laga dhigaa masalanaysaa they held me back way dib ayay celiyeen when I need it marka u baahna marka jumlada meesha ku qoranna waxa weeye waa sidaan hore usoo sheegay biggest thing you should tell me what the biggest thing that hold me back waa maxay waxa ugu weyn ee ku dib dhigaya ku celinaya adiga ku istaajinaya insha Allah jumladaasaan maanta doonaya in la wadaago kuwa noocan oo kale oo phrasal verb oo markaasna waan soo badin doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.